qayb dilaacday oo bir ah oo isku bogsatay tijaabo ka yaabisay saynisyahanada. Ku galkan hoos taasi maaha inay dhacdo. Tijaabo la daabacay 2-3, saynisyahanadu waxay arkeen qayb dhaawac ah oo birta lafteeda bogsanaysa. Inkasta oo dayactirku uu ahaa kaliya heerka nanoscale, fahamka fiisigiska ka dambeeya geedi socodka ayaa dhiirigelin kara waa cusub oo injineernimo. Koox ka socota shaybaadhka qaranka ee Sandia iyo jaamacadda Texas A&M ayaa tijaabinayay adkaysiga gabal yar oo platinum ah oo lagu laalay meel faaruq ah iyadoo la isticmaalayo farsamo koronto oo gaar ah oo gudbinta si ay u soo jiidaan edifyada birta 2 jeer ilbiriqsi kasta. Waxay dabadeed arkeen isbogsiinta ee miisaanka aadka u yar ee 4 nanometerka waferka birta ah. Dildilaaca uu keeno nooca aan kor ku soo xusnay waxaa loo yaqaanaa dhaawaca daalka, walbahaarka soo noqnoqda iyo dhaqdhaqaaqa sababa nasasho yaryar, akhirka sababa in mishiinada ama dhismayaashu jabaan. Waxa yaab leh, qiyaastii 4 daqiiqo oo indho-indhayn ah kadib, dildilaaca platinumka waxa uu bilaabay inuu dib isugu soo noqdo oo uu ishagaajiyo ka hor inta aanu dib u bilaabin jiho kale. Jaantus bir ah. Xoogaga jiidista falaaraha gaduudan waxay abuureen dildilaac ku bogsaday cagaaran birta platina. Dan Thompson shaybaadhka qaranka ee Sandia. Tani waxay ahayd gebi ahaanba wax cajiib ah in la daawado gacanta koowaad, ayuu yidhi saynisyahanka qalabka Brad Boyre oo ka socda shaybaadhka qaranka ee Sandia markii natiijada lagu dhawaaqay. Xaqiiqdii ma aanan raadinayn. Waxa aan xaqiijinay ayaa ah in biraha ay leeyihiin awood dabiici ah oo ay ku bogsiyaan naftooda, ugu yaraan haddii ay dhacdo dhaawac daal ah oo nanoscale ah. Kuwani waa xaalado sax ah, ilaa hadda ma garanayno sida ay tani u dhacayso ama sida aan u isticmaali karno. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ka fekerto kharashyada iyo dadaalka looga baahan yahay hagaajinta wax walba laga bilaabo buundooyinka ilaa matoorada ilaa telefoonada, ma jirto wax sheegaya inta ay leeg tahay faraqa biraha isbogsiinaya ay samayn karaan. Inkasta oo indha-indhayntu tahay mid aan hore loo arag, maahan wax lama filaan ah oo dhan. Sanadkii 2013, saynisyahanka agabka jaamacadda Texas A&M Mikhail Demkowicz ayaa ka shaqeeyay daraasad saadaalisay in bogsashada nanorac noocan oo kale ah ay dhici karto, oo ay wadaan miraha kristalineka yar ee gudaha birta ah asal ahaan u beddelaya xuduudahooda iyagoo ka jawaabaya walaaca. Demkowicz ayaa sidoo kale ka shaqeeyay daraasaddan, isaga oo isticmaalaya moodooyinka kombiyuutarada ee la cusboonaysiiyey si uu u muujiyo in aragtiyihiisa 10 sano ee ku saabsan dabeecadda isbogsiinta birta ee nanoscale ay la mid tahay waxa halkan ka dhacaya. Sawirro muujinaya habka bogsashada. Indho-indhayn faahfaahsan oo ku saabsan habka bogsashada oo laga soo qaatay muuqaal firfircoon. Bar et al. Nature 2-3. In habka hagaajinta tooska ah uu ku dhacay heerkulka qolka waa arrin kale oo rajo leh oo cilmi baarista ah. Birtu caadi ahaan waxay u baahan tahay kulayl badan si ay qaabkeeda u beddesho, laakiin tijaabada waxaa lagu sameeyey meel faaruq ah. Waa la arki doonaa in isla habkani uu ku dhici doono biraha caadiga ah ee jawiga caadiga ah. Sharaxaada suurtogalka ah waxay ku lug leedahay habka loo yaqaan alxanka qabow, kaas oo ku dhaca heerkulka jawiga mar kasta oo sagxadaha birta ahi ay isu soo dhowaadaan si ay isku wada dhuftaan. Caadi ahaan, lakabyada khafiifka ah ee hawada ama wasakhowga ayaa farageliya habka. Deegaanada sida Kaum of Space, biraha saafiga ah waxaa lagu qasbi karaa in ku filan si isku mid ah si dhab ah ugu dheggan. Rajadaydu waxay tahay in natiijadani ay ku dhiirigeliso cilmi baarayaasha agabka inay tixgeliyaan xaaladaha saxda ah. Agabku wuxuu samayn karaa waxyaabo aan weligeen filayn, ayuu yidhi Demkowicz.